kulanti waxaan asxaabay meel walba joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka Arrimaha Fanka. Maanta waxaan soo qaadan doonaa aflaanta tiyaatarada saaran oo kala Pati Patni iyo panipat. Waxaana ku bilaabi doonaa filimka Pati Patni oo ganacsigiisa wanaagsan halkiisa ka sii wato, wuxuuna shalay oo talaadada ahayd soo xareeyay ama keenay 4.75 karoor, wuxuuna haatan wadartiisa guud marayaan 43.50 karoor. filimkan ayaa la filayay in isbuuciisa koowaad uu soo xareeyo qiyaas ahaan 51 ilaa 52 karoor, mana gaari doono lacagaha uu keenay isbuuciisa koowaad filimka lacagaha kaasoo 53 karoor keenay. waxaana ugu wacan in filimka lacagaha ee isniintiisa koowaad fasax qaran helay. Pati Patni haatan tijaabadiisa koowaad iyo isbuuciisa koowaad wuu ka gudbay, waxaana uu hartay tijaabadiisa labaad iyo isbuuciisa labaad. qaabka uu isku celcelin karo waxaana kala cadaan doonto in filimkan guushiisa halka ay hiigsan doonto isbuuciisa labaad. filimkan isbuuciisa koowaad jimcadii wuxuu keenay 8.50 karoor, sabtidiisa koowaad wuxuu keenay 11.50 karoor, axadiisa koowaad wuxuu keenay 13.50 karoor, isniintiina wuxuu keenay 5.25 karoor, talaadada oo shalay ahaydna wuxuu keenay 4.75 karoor. wadarta guud waa 43.50 karoor. dhinaca kale, filimka panipat wuxuu sii wataa doorkiisa xumaa ee box office-ka maadaama uu soo xareeyay 2.25 karoor talaadadiisa koowaad, taasi oo ka dhigan in filimkan shantiisa maalmood ugu horeysay keenay isku celcelis ahaan 22.25 karoor, taasi oo aan u dhigmin lacagaha uu keenay filimka Pati Patni muddo 3 maalmood gudahooda. toddobaadkan wuxuu ku dhammaysan doonaa qiyaas ahaan 26 karoor, waxaana jiri doona ganacsi xadidan maadaama degnaanshaha hooseeyo maalmaha shaqada. filimkan wuxuu la mid noqon doonaa filimka Baglamanti kaasoo noqday flopka ugu weyn ee sanadkan, islamarkaana labada filim waxay yeelan doonaan cimri isku mid ah. ganacsiga magaalada Maharashtra sidoo kale waa mid liita, waxaa laga yaabaa inuu ka fiicnaado dalka intiisa kale, taasi oo naxdin leh. laakiin magaalada Mumbai wuxuu ka keenay 12 karoor ilaa 13 karoor. filimkan jimcadii koowaad wuxuu keenay 4 karoor, sabtidiisa koowaad wuxuu keenay 6 karoor, axadiina wuxuu keenay 7.50 karoor, isniintii wuxuu keenay 2.50 karoor, talaadadiina oo shalay ahayd wuxuu keenay 2.25 karoor. total wuxuu keenay 22.25 karoor.